kulanti wanaagsan saxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta axada aan idiin soo gudbanayno taariikhdu waa 28 bisha 6 2026 wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa haddaba qodobada barnaamijka oo arrimo kala duwan aanu idinkugu hayno ayaan marka hore waxaynu ku bilaabaynaa Mareykanka iyo Iiraan oo mar kale xalay ilaa saakay isdhaafsanaya weeraro culus oo la isu isticmaalayo duqeymo gantaalo drones iyo diyaaradaha dagaalka haddaba marka hore waxaynu ka hormaraynaa Mareykanka war ay soo saareen ciidankiisa la yiraahdo taliska dhexe ee CENTCOM taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo CENTCOM ayaa sheegay in ciidamadoodu ay weeraro dheeraada ku qaadeen Iiraan. taliska CENTCOM ayaa sheegay in ciidamadoodu ay mar kale qaadeen weeraro dheeraada oo ka dhan ah bartilmaameedyo badan oo Iiraan ay leedahay iyadoo taliyaha guud ee ciidamada ahna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay sheegeen inuu amarka bixiyay. waxay intaasi ku dareen in kadib weeraradii shalay ee Mareykanka ka dhanka ahaa Iiraan ay mar kale weeraro kale qaadeen waxayna arintani ka dambeysay leeyihiin kadib markii weerar lagu qaaday markab weyn oo shidaalka xambaara kaasoo la sheegay in magaciisu ahaa Every Lovely. Iiraan ayaa fursad u heshay inay markaasi hesho in ay ka hortagto maraakiibta halka maraysa. haddaba ciidamada Mareykanku waxay sheegeen in markabka calanka watay Panama uu ku sii jeeday meel u dhow gacanka Hormuz wuxuuna la sheegay inuu waday shidaal gaaraya 2 milyan oo fuusto oo markaa saliid ah sida la leeyahay. haddaba ciidamadu waxay duqeymo cirka ku qaadeen waa kuwa Mareykanka ee si toos ah iyagoo ka jawaabayay weerarka cusub ee Iiraan ay ku qaaday markabkaasi watay calanka Panama. waxay sheegeen ciidamada Mareykanka diyaaradahooda militariga inay bartilmaameedsadeen kaabayaasha ilaalinta militariga Iiraan, nidaamyada isgaarsiinta, goobaha difaaca hawada, xarumaha kaydinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. waxaana ay sheegeen in markaa maraakiibta ganacsiga ay sii mari karaan gacanka Hormuz. ciidamadeenuna waxay yiraahdeen Mareykanku feejignaan ayay ku jiraan oo ay sugayaan jawaabaha Iiraan. mar kale Mareykanka weerar ay qaadeen iyagoo u sababeynaya Iiraan oo xalay nagta ka saartay markab watay calanka Panama oo saliid fara badan ama shidaal fara badan waday inay markaa weerartay. markabkaas wuxuu khilaafay awaamirtii Iiraan. marka meesha dood kulula ka taagan Iiraan waxay leedahay heshiiska Mareykanka aan la galnay qodobkiisa 5 iyo kan 1 wuxuu noo ogolaanayaa in anagu kontroolno meeshan. markab anaga aanan dhihin halkan soo mar hadduu iska maro meel kale marka anagu waa celinayna. Mareykankana wuxuu taagan yahay ma celin kartaan. dagaalkii habeen hore wuxuu ka bilowday markab watay calanka Singapore oo khilaafay awaamirtii Iiraan oo nagta laga saaray. xalay haddana markaasa waxaa Mareykanku ay sameeyeen weeraro cirka ah ayay soo qaadeen oo ay ku jawaabeen. marka warbixintaas ay Mareykanka keeneen intaasoo weeraraan qaadnay anagoo ka jawaabnay dagaalkina waa ka joojinayeen. dagaalkii markay joojiyeen niman haraay ma ilaalada kacaanka Iiraan inta iska weerartid ma hurdaysid adigana. iyaguna inta soo kaceen gantaal hadhiin diyaarad drone hadhiin Kuwait iyo Bahrain ay saakay daakum ka dhigtay Iiraan. sababta ay u beegsatay maxay tahay saldhigyadaas dhaqdhaqaaqyada weerarka waa meeshuu kaga imaanay sida iyagu ay leeyihiin. waxay yiraahdeen Qatar waxba noogama imaanin, Saudi waxba noogama imaanin, Bahrain baalkii Imaaraad waxba noogama imaanin, dhankan maaragtay Oman waxba noogama imaanin. laakiin dhanka Mareykanka ay saldhigyada ay naga soo weerarayeen waxay ahaayeen Kuwait
iyo Bahrain. marka Bahrain waxa ku yaala halka saldhig ee Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe oo dhan oo ah saldhigga maraakiibta oo macnaha ciidanka badda Mareykanka ay ku leeyihiin. halkaas waa meesha marka ay yiraahdeen weerarada nalooga soo qaaday. haddaba marka aan idin tuso warka ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran. haddaba ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku dhawaaqay inay bartilmaameedsadeen 8 goobood oo militariga Mareykanka ay ku leeyihiin gobolka saldhigyada cirka sida Ali Salim oo ku yaala Kuwait iyo xarunta maraakiibta Mareykanka ee Bahrain taasoo ahayd aargudasho oo markaa ay ciidamada Mareykanka kaga aargudanayeen weeraro ay ku qaadeen jasiirado ku yaala koonfurta Iran. haddaba Iran ciidankeeda ilaalada kacaanka Iran waxay sheegayaan inay awood u leedahay Iran inay markaasi xakamayso marinbiyoodka Hormuz sida ku cad heshiiska is-afgaradka ee dhexmaray Mareykanka iyo Iran. waxay intaasi ku dareen ciidamada Iran xadgudub kasta oo ka dhan ah xabad joojinta inuu markaasi jabinayo qodobka koowaad ee is-afgaradka isla markaana uu horseedi doono joojinta iyo maridda gebi ahaanba gaadiidka isticmaalaya marinbiyoodka Hormuz. haddaba duqeynta cirka ayaa laga maqlay Kuwait. militariga Kuwaitna waxay sheegeen inay iska caabinayaan diyaarado daroona iyo gantaalo kaga imanaya dhanka Iran. Bahrain iyaduna waxaa laga maqlayaa xilligan siiriga digniinta ah oo isqabsaday meelo badan oo ka tirsan dalkaasi. haddaba Washington waxay sheegtay in markaa waxa soconaya ay mas'uul ka yihiin Iran. Iranna waxay ku eedeysay in Mareykanka inuu yahay midka mas'uulka ka ah waxa ka dhacaya gobolka. marka Mareykankuna warkaas uu sheegtay nimanka kanuna warkaana sheegeen. waliba Iran waxay sii raacisay meeshan waaba xaraynaa. marka xalay saataan idin sheegay waay meeshan ana amiir wa anta amiir waay. aniga amiira ahay adigana amiira tahay. yaa amarka laga qaadanaa marka Hormuz yaa amarkeeda bixinaya. Iran waxay rabtaa in ayada amarka laga qaato la yiraahdo inaan soo gudubnaa rabnaa xagee maraynaa halkan soo mara halkan ka dusa. Mareykanna markii la waco Iran waxa ma dhahayo isagana wuxuu leeyahay macalinka weynaa oo dhan oo la soo wacay soo gudba waa furan yahay meeshan. marka maraakiibta qaar Iran yasaya markay yasaana Iran nagti ka saareen inta kale meesha iska maraayay. marka meesha mushkilada marka ka jirta waa kaas. Iran marka waxay leedahay heshiiska MOU-ga inaan anagu kontroolno ilaalinta amniga muddo 60 maalmood ee heshiiska kale noo socdo ay ahayd. marka Mareykan marka asaguna hawsha marka saasay meesha u qasan tahay. marka yaa dhib qaba Iran iyo Mareykan habeen walba markay jugta iska saaraan meeshii kalsoonidii lagu bari lahaa way dhumaysaa. maraakiibtii meesha isticmaalaysa way yaraanaysaa. adduunka dhaqdhaqaaqyadii ganacsigii meesha ka xirnaana waa la weynayaa. wax walbana way qaaliyoobayaan. marka adduunyada dhan qaylinaysa. warnimo kan maalinna waa heshiina leh maalinka kale haddana jugta isku haya. marka maxay tahay sheekadooda le filinkan maba aana fahmin waxaan maxay Yurub hadhiin adduunkii oo kale oo dhan maalinkii waa la heshiileeyay hambalyeynay waa meeshii waa noo furanta ku hay. maxaa furmaya marka meesha Trump oo wareersan iyo Iran oo ka darana Israel talaab markuu qaado mid u dhigantay ka daba qaadayo. nimankaasaba odagaan helayba odagaan dada loo helay had nimankan farisiyiinta ayaa loo hayaa odagaan. habeenku iswaalo weerar soo qaado asaguna saldhigyadiisu waa lagu kala cararaa. ilaa hadda waaga uu ka baryaayay kala orda lagu jiray Kuwait iyo Bahrain saldhigyadiisii aw nagta laga saar. isaguna waxa uu ridi karo iyo meelihii uu duqeyn karo duqeey. haddana cid kale celisay male kaaga daran sidii xalay oo kale jugta markay iska galiyaan waa aamusayaan.
nin walba meeshiisuu galaa haddana waa la sugaa marka sheekadaasu marka halkaasay maraysaa xaaladda Hormuz marka halkaasay joogtaa dhanka kale nimankii mucaaradka ahaa ee Netanyahu kooxdiisii qoladii maaragtay mayalka adkeed oo Netanyahu la socotay bin Ghafiir ninka la leeyahay wuxuu leeyahay heshiiska Lubnaan lala galay waaba heshiis aan jirin Israa'iil khatar u keenay Netanyahu waa u sheegay yiri shirka golaha wasiirada kooban ee cabinetka la leeyahay waa ina keenta heshiiska halkaas looga codeynaa kaliya go'aan ma gaari kartid heshiiskaas waa diidanay marnaba in afka laga soo qaado waa ka baxaynaa Lubnaan ma jirtaba oo hadii Xisbullah hubka laga dhigaalay heshiiska laftirkiisa ba heshiis oo aan shaqeyneen u eg markii hubka laga dhigo Xisbullah ayaan ka baxaynaa Lubnaan ee ku soo heshiiyeen Israa'iil waxay ogtahay in hubka laga dhigi karo Xisbullah kan wuxuu taagan yahay in la soo hadal qaadaba ma Lubnaan waa ka baxaynaa maxay qorsheeni dhan oo Israa'iishi weyneed iyo dhulkan aan qabsanayna dhan in hatta la soo hadal qaadaba ma Xisbullah hubka hadhigeen ama yeesan dhigin si uga baxaynaa meeshan waaba ku habsanay waa qabsanay marka dad saas u wareersan adduunka dhan madax ah ninkan waxa saas u Allah waa wasiirka amniga Israa'iil waay wuxuu leeyahay meeshan aan ku habsanay war Xisbullah hubba dhigta ma yeesan dhigin meesha seeba loo soo hadal qaadi karaa waa ka baxaynaa maxaa looga baxaa meesha inaan sii socono hore u socono carabta dhulkoodii qaadana maahan waaba laabanayna maba ku jirto siyaasadkeen adiga waa kaas arag yab haddaba markaan tuso telefishinka Al Jazeera ayaa qoray warbixin uu leeyahay ninka la leeyahay bin Ghafiir wuxuu leeyahay heshiiska lala galay Lubnaan waa qalad faadix ah oo maaragtay aan laga xishoonba wuxuu leeyahay wuxuu dalbanayaa cod in loo qaado cabinetka golaha wasiirada la yiraahdo inay isugu yimaadaan marka wasiirka amniga gudaha Israa'iil Itamar bin Ghafiir ayaa xalay oo sabti ahayd wuxuu sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid qaldan wuxuuna codsaday in cod degdeg ah loo qaado golaha wasiirada amniga kooban ee cabinetka heshiiskan waa in degdeg loo keenaa u dheey haddaba qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa arrin la yaab leh ayaa waxay qabsatay adduunkii oo dhan warbaahintii oo dhan ka hadlaysa waa wiil iyo aabihiis oo reer Gaza waxay ka soo jeedaan deegaanka la Khan Yunis qisadooda qabsatay caalamka oo dhan nimankaasu way dhaawacmeen waa la soo qaaday Masar ligi dadkii dhaawac ahaa ee Gaza ku dhaawacmay ee Masar ligi way reysteen meel ay u maraan Turkiga tageen Turkiga markay tageen waxay rabeen inay Yurub u tahriibaan doomihii ay raaci lahaayeen iyo wixii iyo qarashay ku raacaan waayeen odagii iyo wiilkiisa way isdhaarsadeen oo waxay raadeen halkan Greega ee Turkiga ilaa Greega dabaalaba uga baxaynaa adduunka maartay nimankan waxay raadeen waaba dabaalanayna warbadan bahallaa ku jira niman maartay libaax badeed iyo aan ku qadaynin ma jirtee wallahi meeshaan waa ka baxaynaa meeshaan nimankii dabaalay ka soo bilaabay Turkiga ayay waxay ku tageen Greega record dhigeen wax dhici kara maanali nimankan maxay doon ma wataan waa dabaalanayaan asbaaxa lilada dabaal bas ku soo baxay ilaahay u fududeeyay Soomaa waxna ma tusin xayawaankii badda ku jirana ilaahay wuu ka indha saabay ayagoo jasiirad Greega ka soo baxaa haddaba qisadan qabsatay aan idin la wadaago haddaba waxa ciwaan looga dhigay rixladii ama safarkii dadkii qaxootiga ahaa ee naadirka ahaa oo weligiis adduunka noociisa oo kale aan la arkin aabba iyo wiilkiisa oo Gaza ka yimid ayaa dabaal muddo 7 saacadood oo u dhaxaysay Turkiga ilaa Greega sameeyay haddaba warbixintu marka waxay leedahay aabba iyo wiilkiisa ayaa ku guuleystay
iyagoo kasoo jeeda deegaanka Khan Yunis ee marinka Gaza inay masaafo 7 ilaa 8 kiiloomitir u dhaxaysa dabaal ah ay markaasi ka bilaabaan Turkiga ilaa ay ku tageen jasiiradda la yiraahdo Kos ee wadanka Greega. haddaba labada wiilka iyo aabihiisa ayaa da'dooda lagu sheegay odaga inuu jiray 52 sano, wiilkana da'diisu ay tahay 23 sano. waxaana la sheegay markii hore inay dhaawac uga soo baxeen Gaza, Masar tageen kadibna ay u gudbeen Turkiga, iyagoo la sheegay inay Turkiga kadib hadda ku sugan yihiin jasiiradda Greega. marka odaga iyo wiilkiisa waa dagaalameen. marka kullay hadda jasiiraddaasi joogaan leeyahay warbaahintii oo dhan marka wareysanaysa dabaal ha Turki ilaa Greega waa la yaaban yahay. marka annaga doon iyo waxaan iyo maba isku haleynay kuleeyihiin nimanka Falastiiniyiinta niman caadi ba. haddaba barnaamijkii ugu horreeyay maanta waxada asxaabay waa nagaytaa wixii akhbaarada ay soo kordhaa haddii alla idmo barnaamijyada dambe ayaan kula wadaagi doonaa. ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan inagoo idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen. like garay oo share garay haddaad cusub tahayna subscribe-ka ka ilooba YouTube-ka, Facebook-gana follow garay. inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno